marka arintanu horta koonfurta aad bay ugu badan tahay aniga hadda gabadh yar oo daafeed ka timid ayaa ii shaqayso ila joogta gabadha yar iyadoo 12 jir la ii keenay hadda sanadii bare ila joogta hooyadana waxay tiri gabartaygu guur waa gaadhay isoo mar hadii ay dhadigaati guuray gaadhay ii keen maalada abeeran la hadlo waxaan ku yiri gabadhii hadda guur kumay gaadhin oo 13 jir maadaysi markaas wuxuu yiri maya anaga dhaqankayaga weeyaan dhaqankayagana ma baabi'inayno oo waana laga caayaya hadhowt hore waxaa jiri jirtay gabar aan xoogaabinin lagu madari jiray waxaa lagu dari jiray gabartu markay xoogawdo aan nimanka la sii jiray hadda laakiin waxaa soo dhacda waryaa waa ku dumaale gabartayda wiilkaanaan ku darsana anigana halkaanaan ku darsana taasoo ma jirto wacyigelin aan uga baahannahay dhibaatadaas inaan ka korno oon ka wacyi gashano ilmahayna saasaan u baahannahay ilaahay hana garab galo intii noo keentay ee barnaamijkan noo soo keentane waa uga mahad celinaynaa ajri xasanaad Allah siiyo gabadh markay 20 amba 25 gaarto waxa laga yaabaa inay reerkeeda u hana qaadi lahayd inay taqaano amba ninkeeda iyo caruurteeda duu Ilaahay wax siiyo si u barbaarlada inay taqaano oo heli karto waalidkeed amba familkeedu wuxuu ku barbaariyo kale inay la jaan qaadi karto cunuga maanta u bixi Ilaahay maanta si inay barbaarin karto caqabad kasto ka hor timaadana inay la daala dhici karto laakiin markay 13 jirto amba 12 sano jirto kale reer ma dhaqan karto been waxa loo sheegaa waxaan u wacyigelin karnaa sida aan degma u degan ani aan qaasitay degmada waa bari aan degana wacyigelin aad u balaaran ururka haweenka qaranka waa ku dhex jirnaa wacyigelin aad u balaaran waa inaan sameeynaa oo aad hortagnaa iyo gudoola oo foolka xuno anaga ebel nagu soo dhacay in hadda gabdhahayna ka cishano aad inaan u dadaalno haweenka Soomaaliyeed gabdhaha yaryarka oo mustaqbalka sugaya gadaasheega fadhiyo waxaas iska daaya wayna wax baratiin wadanka wax u qabsatiin horumar aad gaartiin oo jaamacad markaa dhameeyeen oo hooyo aad tiraad hadda ana wiilkan ku kaastay igu dar mustaqbalkayga waa gaari ayaan u raacsanahay anigu taageersanahay gabdhaha 14 sano rago gabdhaha naaga leexda 14 sano 15 sano reerka naaga daraysiin Ilaahay ka cabsada noo daaya waa muhiim in maxay ahaato bulshada lagu baraarujiyo waxaan aad iyo aad rabaa inaan u bogaadiyo ururkan u bogaadiyo inuu isku taagay in hadii Ilaahay raado bulshada oo raba inuu ku baraarujiyo bulshada u iftiimiyo xaq caafimaad ahaan iyo xaq psychology ahaan iyo xaq maxay ahaato cilmi ahaanba dad oo darasay inay casharadaas hadii Ilaahay raado ay siiyaan bulshada markii bulshada la intiina hadii ladin siiyo casharkaas intiina qofkiiba hadii 2 qof ama 3 qof oo sii gaarsiiyo 3 qof oo sii gaarsiiyo 3 qof kale sii gaarsiiso waxa isleeyahay bulsho badan runtii ay gaaraysa wacyi Soomaalidana waa dad aad u jecel hadii Ilaahay yiraahdo inay xogta iyo wararka ay kala faa'iideystaan isgaarsiiyaan marka waxaan rajeynayaa in maxay ahaato casharada macallimiinta bixinayso inaan ka wada faa'iideysano hadii Ilaahay yiraahdo si fiican u dhageysano waxaan ka soo qayb galay seminaarkan ayaan ka soo qayb galay waxaan ka faa'iiday seminaarkaas aniga ayoo da'yar oo 12 sano jira ayaa nin la siiyay dhibaatada ee leedahana waan arkay alxamdulillah aniga dhibaatana way iga soo gaartay nimcana way iga soo gaartay awlaad baa la siiyay laakiin dhibaatada ay leedahay waan soo arkay alxamdulillah waxaanan kala dagaalamayaa gabdhahayga ma wiilashayda ilmahayga waxa ay qorshaysan cunug walba markuu dhameystirmo daadiis u dhameystirmato aqligiis u dhameystirmo inuu guursado aan rajeynayaa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhalinyarada oo yaryarka waxaan kula talinayaa inaysan guurka ku degdegin taladaasaan siinayaa